halkani waa BBC oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegaystayaal, qodobada idaacadeena duhurnimaan maanta idinkugu hayna waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Itoobiya iyo Eritrea oo saaka gaaray magaalada Muqdisho. Mareykanka iyo Turkiga oo ka wada hadlay dilka la tuunsan yahay loo geystay saxafiga Jamaal Khashoggi. daraasad laga sameeyay dekada Berbera iyo maalgashiga DP World. haddaba maxay daraasadaasi leedahay? dekadu dadka reer Somaliland wax weyn bay u tahay. walaaho iyo walaac badan baa ka yimi markii arrimahaas oo qarsoodi badan ku jiray. anigu laakiin daraasadeedu waxay leedahay baaxadada waynu galay, waxaynu muhiim marka hore in baaxadada la fuliyo oo aynu ku daba galno oo aynu inaguna dhinaceena ka fusho dhinaca kale ka fusho. iyo gabdhaha iskuuleyda ah ee uurka qaado oo walaac ka dhalisay dalka Koonfur Afrika. qodobada iyo kuwo kale oo ciyaariya ay ka mid yihiin ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan. soo saaraha barnaamijka waa Kawsar Maxamed, anigoo Faadmo Macalin Abuukar ayaa idiin soo jeedinaya. marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka caalamka iyo Ciise Xaaji Cabdulle. mahadsanid Faadmo. Mareykanka iyo Turkiga ayaa ka wada xaajoonaya dilka la tuhunsan yahay in loo geystay wariyaha Sacuudiga Jamaal Khashoggi oo jaani cirib ugu dambeysay oo aan la garanaynin meeluu jaani cirib dhigay tan iyo markii uu gudaha u galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul 2 isbuuc ka hor. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa la kulmay madaxweyne Erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga. saraakiisha Turkiga ayaa aaminsan in Sacuudiga ay ka dambeeyeen dilka Mr. Khashoggi. Israa'iil ayaa sheegaysa inay duqeyn dhanka cirka ah ku qaaday 20 bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza, taasoo jawaab u ah gantaal laga soo ganay dhulka Falastiiniyiinta. saraakiisha caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiintana waxay sheegayaan in hal qof uu ku dhintay weerarkaasi. marsii horreysay gantaal laga soo tuuray Gaza ayaa ku dhacay guri ku yaala magaalada koonfurta Israa'iil. nin u sharaxnaa doorashada baarlamaanka ee Afghanistan ayaa dhintay kadib markii bambal loogu rakibay kursiga xafiiska u yaalay. Taliban ayaa sheegatay weerarkaasi inay ka dambeysay. weerarkaasi oo lagu qaaday Cabduljabaal Qaxrameyn ee magaalada Lashqar ku yaala ee gobolka Helmand oo ay ku xoogan yihiin kooxdan Taliban. booliska gobolka Kerala ee Hindiya ayaa isku dayay inay kala diraan dibadbaxyaal caraysan xilli la filaya in macbadka ugu magac dheer Hindida in uu albaabada u furo haweenka, gaar ahaan kuwa caadada ay ku dhici karto. macbadka Sabarimala ayaa tallaabadan qaaday kadib markii maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi ay amartay haweenkaasi in loo ogolaado, kuwaasoo uu qarniyo badan halkaasi galin. dadka ku dhegan dhaqanka Hindida ayaa wacad ku maray inay ka hortagi doonaan tallaabadaasi. ugu dambeyntiina Canada ayaa noqotay dalkii labaad ee caalamka ee si sharci ah u ogolaato in maandooriyaha xashiishka lagu iibin karo dukaamada. dalka koowaad ee sidaasi sameeyey ayaa ah Uruguay. tallaabadan ayaa loo gol leeyahay in looga hortago faa'iidada ballaaran oo ay kooxaha burcadka ka helaan maandooriyaha xashiishka. warkii dunidana waa naga intaasaan dib idinkugu celiyo Faaduma. mahadsanid Ciise. waa hagaag dhegeystayaal, aan ku bilownay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa saaka ka degay magaalada Muqdisho. arrintan ayaa loo arkaa dadaal lagu sii xoojinayo heshiisyadii nabadeed ee dhowaan dhex maray dalalka geeska Afrika. wariyaheena magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa haatan qadka si toos ah ugu jira. Ibraahim, waxaad inooga warantaa ujeedada ay wasiiradaasi u tageen magaalada Muqdisho? Faadmo, wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Itoobiya Warkane Gabayeho iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed waxay hadda kulan la yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. shirkaas albaabada ayaa u xirnaa daqiiqada ka hor ayaa shirkaasi uu soo dhamaaday. ila ku dhow shirka waxa ay BBC-da u sheegeen in waxyaabaha arrimaha ay wasiiradu ka wada hadlayeen ay u badnaayeen arrimaha iskaashiga dhaqaalaha iyo heshiisyadii hore ee saddexda wadan ay hore u gaareen bishii September markii madaxweynayaasha
eritrea soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ay ku kulmeen magaalada asmara wafdigu hadda waxay ka soo baxeen kulanka ay la yeesheen wasiirada soomaalida kadibna waxa ay aadeen xafiiska madaxweynaha halkaasoo ay sanaan ugu tageen madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo laguna wado inay halkaa qadar lagu sameeyo dabadeed marka ay ka soo laabtaan ayaa la filayaa inay shir jaraa'id oo wada jira qabtaan wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya eritrea iyo etoobiya si weyn ayaa loogu soo dhaweeyey markii hore garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle ee magaalada muqdisho dabadeedna madaxtooyada ayay yimaadeen halkaas ayayna kulamadu hadda uga socdaan waa tahay ibraahim dhanka kale waxaad nooga warantaa ammaanka magaalada saakay waa sidee iyo weliba wadooyinka xiran inkastoo aanay dadku ka warqabin booqashada madaxda eritrea iyo etoobiya ay maanta ku yimaadeen magaalada muqdisho haddana dadku waxay saar ka soo tooseen wadooyin badan oo magaalada ah oo xiran iyo ciidamada ammaanka oo wadooyinkaasi taagan ammaanka aad ayaa loo adkeeyay markaad eegto gegida diyaaradaha ilaa laga yimaado xarunta weyn ee madaxtooyada magaalada muqdisho dadku markii dambe waxay ka war heleen in wufuuddaas ka socota eritrea iyo etoobiya ay muqdisho kusoo fool leeyihiin ama ay yimaadeen dadku way lugeynayaan wadooyinka qaar wadooyinka xiran ee wafdigu ay marayeen inkastoo cadceedu kulushahay oo dadku ay lugta aada u dhibsanayeen haddana waxa aad dareemaysaa culayska wafdiga yimid maanta magaalada iyo ammaanka oo aada og tahay magaalada muqdisho sida uu yahay aad ayuu umahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo inooga warbixinayay wasiirada dalalka etoobiya waa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka etoobiya iyo eritrea oo gaaray magaalada muqdisho dhegeystayaal ayaa qodobkaas ra'yigooda kasoo dhiibta waxaana ka mid ah ciid qaasim warsame oo jooga burco waxa uu leeyahay socdaalka ay wasiiradan ku tageen muqdisho aan soo dhaweynayaa waa tallaabo wanaagsan waxaan ka rajeynayaa in safarkooda uu noqdo mid guul kusoo dhammaada isfahana kasoo baxa sidoo kale eliyas oo jooga muqdisho waxa uu yidhi wasiirada yimid muqdisho waa in si fiican loola xaajooda etoobiya iyo eritrea sinaba uma kala baxayno oo wax badan ayaa inoo dhexeeya ayaa uu leeyahay waa tahay dhegeystayaal haatanna maraykanka iyo turkiga ayaa maanta oo arbaco ah ka wada hadlay dilka la tuhunsan yahay ee saxafiga sacuudiga u dhashay jamaal khashoggi oo sidii uu u galay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul 2 Oktoobar aanan dib dambe loo arag waxaa soo baxaya warar aan la xaqiijin oo sheegaya in lagu dilay gudaha qunsuliyadda hase ahaatee waxaa socda baaritaan ay wadajir u wadaan turkiga iyo sacuudiga madaxweyne Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sugo natiijada baaritaanka halkii la iska cambaarayn lahaa sacuudiga cabdinuur maxamed ayaa warbixintan markaasi inoo haya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Pompeo maantay wadahadalla waxa uu kula yeeshay Ankara hoggaanka waddanka Turkiga wadahadalladaasi waxaa looga hadlay saxafiga la waayay ee Sacuudiga u lashay oo la sheegayo in lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul waxa ay soo talaya dhalisha iyo cambaarinta lagu hayo Sacuudiga ee arrinta saxafiga ha yeeshee madaxweynaha maraykanku waxa uu sheegay eedaha Sacuudiga la saarayo inay tahay iyada oo aan caddayn loo hayn in Sacuudiga la iska eedeeyo waxaana ay noqonaysaa mid lagu degdegay oo loo baahan yahay in baaritaanka la sugo madaxweyne Trump ayaa wuxuu u diray Sacuudiga iyo Turkiga xogayihiisa arrimaha dibadda oo shalay la kulmay hoggaanka Sacuudiga maantana Ankara kula kulmay madaxda Turkiga Pompeo waxa uu sheegay Sacuudigu inay ballan qaadeen baaritaan buuxa inay sameynayaan They said it would be a thorough, complete, and transparent investigation. We'll all see the results of that. waxa ay sheegeen baaritaanku inuu noqon doono mid buuxa oo dhammaystiran oo daahfuran dhammaanteen waanu arki doonaa natiijada waxa ay gaareen go'aan ah in natiijada baaritaanka ay tusi doonaan dunida oo dhan waxa kale oo ay tilmaameen inay si degdega baaritaankaasi u samayn doonaan xiriirka maraykanka iyo sacuudiga cadaadis xoog leh ayaa dul fuulay tan iyo markii dowladda turkigu ay sheegtay inay hayso daliil cad oo muujinaya in jamaal khashoggi lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul madaxweynaha turkiga erdogan oo warbaahinta daacadda u ah ee waddankiisuna eedaha xoog leh ay faafinayeen in dhowaale iyo isaguna wuxuu qaatay go'aan ah in mudlaanta la siiyo oo la sugo natiijada ka soo baxda baaritaanka hoggaanka boqortooyada sacuudigu si xoog leh ayay u beeninayaan inay wax kala socdaan wixii la sheegay ama lagu andacooday inay ka dhacayeen qunsuliyadooda magaalada istanbul waxaana ay ku adkaysanayaan in laga warsugo natiijada baaritaanka iminka socda aad ayuu mahadsan yahay cabdinuur sheekh maxamed isxaaq oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya dhegeystayaal warbixino kale ayaa inoo soo socda halkaad nagala socotaana waa b b c
BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay dhegeystayaal haatana iyadoo shirkadda imaaraadka carabta laga leeyahay ee DP World ay toddobaadkii hore shaacisay inay bilaabayso ballaarinta dekeda berbera oo wejiga hore lagu kordhinayo 400 oo mitir ayaa waxaanan weli bilaabmin mashaariic kale oo ay wadooyin ka mid yihiin kuwaasoo qayb ka ah heshiiska dhexmaray shirkadaasi iyo jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland. haddaba Dr. Maxamed Cismaan Fadal oo ah agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Arrimaha Bulshada iyo Horumarka ee loo soo gaabiyo Suraadi ayaa daraasad ka diyaariyay dekeda berbera iyo maalgashiga DP World waxaana arrimaha ay daraasadda ku ogaadeen uga waramay wariyaha BBC Axmed Saciid Cige. dekadu dadka reer Somaliland wax weyn bay u tahay waa mustaqbalkoodii iyo future-koodii meeshii adduunka ku dhaxgal lahaayeen walaaho iyo walaac badan baa ka yimi markii arrimahaas oo qarsoodi badan ku jiray anigu laakiin daraasadeedu waxay leedahay mahadada waynu galay waxaynu muhiim marka hore in mahadada la fuliyo oo aynu ku daba galno oo aynu inagu dhinaca ka fusho dhinaca kale ka fusho waxa kale oo muhiim maalgelin baa adduunka u baahan yahay maanta maalgelintu waa waxa ugu muhiimsan ee lagu horumarayo طريقة أبوك توصلنا مع الجليد اللي هو هلا أنا كاسة كمية هو جبوتي ضلك أنا لقى من الإداء كوجوليستين وحكلوا كحرا ضلك الجيش كأفريقيا أمي سن أبوك ضلك بدله أيها النقلات شراء مركز صدح وويل إسكابة يدكندي بينو كاني وطلع نجح دقي دكندي لبس سنة كهر هي الجورة شيء DP ولا شركة الإمارات هالشيء في برلمان كأسحيين واحد هاي سنة كهرة أي 400 متر دكتة أي ديسان لكن هذا تبي ودعوه إلى 8 بلاد يديروا دعوه هذا صدقك waxaan u arkaa dayac marka wax la wada gelayo marka hore hadii aan ma aragtay sal adag loo dhigin dayaxga ka yimi imikana waxa muhiim ah oo mar walba inaga waajibkeena saaran waxa weeyaan iyaga maadeen waa saxiixna maadeen ka soo baxaan waxaana ugu muhiimsan maadeen fuliyaan qarashka dhismaha marka hore 400 la 600 la gaarsiinay ilaa 5 markab ku soo xiranaysa caalamka ay la miisaan noqonayso inaga targetkeenu waa kaas in fulo weeyaan iyo waxay fulinayaan kala way ka wada tashan doonaa laakiin haday imika bilaabeena in lagu daba socdo waqtiga lumay aanu ka lumin waqtigii inaga xageena ka lumay lagu daba joogsado ay hirgasho hadaanay hirgelin horumarkii iyo macna male iyada iyo wadaduba inay hirgalaan weeyaan محمد عثمان فضل وأختي حكومة وحيلة وان ددالني تذكين نجسه هرشيلي وقوى أركي إمكا إمارات كي سعودي كي البابدا ينوفرين تذكروا معارف كهنا وح إليه دكدي والجوة هيك سلقينا ويسميسنيان لكن وح لو حكي كلا هيد وضدي سكوب رئيسي بربرة إلى يوتشالة إن إيربورت كي كلا ما دام إيربورت كي يوريجن إن إيربورت كلا بربرة ولا سميه مشرو عزم تعالى دي مشاريع دي وحيكون بالله قادر بمشرة تاكور waxa muhiim ah in sacrifice badan oo hadii bad ma xagga dadkeeda ka yimi oo aynaan inagu wax badan aan naaqsh badan la gelin gal laakiin milaheedu maanta adduunka investment weyn inta la cidii heshaa way ku dhigtaa laakiin way fushaa way aan afkhaliya noqon waxaana inaga ina saartay mas'uuliyadda way daba gallo oo qaylino oo iyaga ku daba joogno iyaga waxaan ka doonaynaa inay fusho waxa la dhisaya Imaaraadka Itoobiya waxaan ka doonaynaa in kula galay ugu yaraan 30% waxa Itoobiya dhoofinaysa inay berbera ugu yaraan hadaan ka badan noqonin wala huwa ay markay soo gal waxa la yiri Eritrea iyo baa u beerayaan inaga waxba inaga khusayma waxa ay khusaysa dalku waa dalal waaweyn waxa adduunka waa qabataa taas weyn daba gal kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Cismaan Fadal oo ah agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Arrimaha Bulshada iyo Horumarka ee Suraadi uu waramayay wariyaha BBC-da Axmed Saciid Cige waa hagaag dhegeystayaal warbixin Koonfur Afrika ku saabsan ayaa inoo soo socota imika ciyaarihii hadii aan eegno laacibka qadka dhexe uga dheela Liverpool Naby Keita ayaa ku dhaawacmay ciyaar xulkiisa Guinea uu la yeeshay Rwanda taas oo kamid ahayd isreebka loogu soo baxayo koobka qaramada Afrika xulka kubadda cagta Jarmalka ayaa xaalad adag wajahaya kadib markii uu xalay guul daro 2-1 ah kala kulmay dhigiisa Faransiiska ciyaar ka tirsanayd Nations League labada gool ee Faransiiska ayaa waxa uu dhaliyay Anthony Griezmann gool daradan oo ah tii labaad ee xigta markaasi xigta ayaa culayska ku sii kordhinaysa tababaraha Jarmalka
dhanka kalena xulka Wales ayaa 1-0 uga badiyay dhigiisa Jamhuuriyadda Ireland waxaana goolka oo ahaa laad xor ah si qurux badan u dhaliyay Harry Wilson. Waagaag dhageystayaal warbixino kale ayaa markaasi noo soo socda halkaad nagala socotaana waa BBC. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefonka nambarkiisu yahay 4477862000 kadib waxa ay kula tahay BBC Soomaali. waa tahay dhegeystayaal haatana gabdhaha iskuuleyda ah ee uurka qaada ayaa mar kale walaac ka dhalisay dalka Koonfur Afrika. waaxda waxbarashada ee dalkaasi ayaa sheegtay in 36 gabdho iskuuley ah oo ay da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 19 oo dhigta 2 iskuul oo ku yaala gobolka Limpopo ee dalkaasi ay uur leeyihiin. wariyaha BBC-da ee Koonfur Afrika Nomsa Maseko ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg. Kawsar Maxamed ayaana soo jeedinaysa. waaxda caafimaadka gobolka Limpopo ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in tiradan 31 arday oo isugu jira kuwa dhigtay iskuulada hoose dhexe iyo iskuulada sare da'dooduna u dhaxayso 9 ilaa 19 sano jir uu ku dhacay cudurka HIV. saraakiisha caafimaadka oo halkaasi ka waday barnaamij ay ku wacyigelinayaan dhalinyarta ayay ku ogaadeen arrin naxdin leh oo ah in tiro badan oo ardayda wax ka baratay iskuulada hoose dhexe iyo kuwa sare ay yihiin kuwa u wada qaangaar ah. isticmaalka badan ee maandooriyaha sida khamriga iyo xarumaha bulshadeed oo loo nasasho tago oo halkaasi aanan ka jirin ayaa loo aanaynayaa waxyaabaha sababa dhibaatadan. dhanka kale waaxda waxbarashada ee dalka Koonfur Afrikana waxay sheegeen in gabdhaha da'da yar ee uurka qaada ay dhibaato weyn ku hayso bulshada. 4 bilood oo la soo dhaafay gabar ahaan lagu qiyaasay 6 ilaa 11 sano jir ayaa ka mid ahayd 1,000 gabdhood oo uur qaaday gobol kale. Kawsar Maxamed ayay taasi ahayd aad ayay u mahadsan tahay. waxay noo soo jeedinaysaa warbixintii Nomsa Maseko ay ka soo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan baafintii. baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiiro Cabdulaahi Jaamac. Samiiro mahadsanid Caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay Xaawo Cali Magange oo joogta Kismaayo. waxa ay baafinaysaa Nuur Cali Magange. waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka Tanzania sanadii 2001. haddaba haddii uu maqlayo Nuur Cali Magange ama way jirto cid garanaysa falan warkiisa hala gaarsiiyo Xaawo Cali Magange iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo ama waa telefoonka nambarkiisu 252698 Cumar Maxamed Yuusuf oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Axmed Maxamed Yuusuf. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2000. haddaba haddii uu maqlayo Axmed Maxamed Yuusuf ama way jirto cid garanaysa falan warkiisa hala gaarsiiyo Cumar Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2526779999. Cabdiraxmaan Kaahin oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Yuusuf Kaahin. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 1999. haddaba haddii uu maqlayo Yuusuf Kaahin ama ay jirto cid garanaysa falan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdiraxmaan Kaahin iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. Axmed Maxamed Cumar oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Maxamuud Maxamed Cumar. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Holland. haddaba haddii uu maqlayo Maxamuud Maxamed ama way jirto cid garanaysa falan warkiisa hala gaarsiiyo Axmed Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Kismaayo ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 06585435. Maxamed Abshir Cabdi oo jooga Afmado waxa uu baafinayaa Cabdulcasiis Yuusuf. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2016. haddaba haddii uu maqlayo Cabdulcasiis Yuusuf ama ay jirto cid garanaysa falan warkiisa hala gaarsiiyo Maxamed Abshir Cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Afmado. Raxmo Cusmaan Cumar oo joogto
muqdisho waxay baafinaysaa maxamed cusmaan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2017 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cusmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo raxmo cusmaan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho. ceeblo cusmaan cali waxa ay baafinaysaa cali cabdi diiriye waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Morocco sanadii 2013 haddaba haddii uuna maqlayo cali cabdi diiriye amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ceeblo cusmaan cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne. cabdiqaadir mayow cabdi oo jooga muqdisho waxa uu baafinayaa nimco mayow cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 1995 haddaba haddii ayna maqlayso nimco mayow amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdiqaadir mayow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay #615 1135 anfac maxamuud cabdulle oo joogta beledweyne waxa ay baafinaysaa deeqa maxamuud cabdulle waxa ugu wardambeysay sanadii 2002 haddaba haddii ayna maqlayso deeqa maxamuud cabdulle amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo anfac maxamuud cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay beledweyne. faadumo cali bariise oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa xasan cali sheekh waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2008 haddaba haddii uuna maqlayo xasan cali sheekh amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo cali bariise iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho ama taleefanka lambarkiisu uu yahay #6178992. isaaq faarax cabdulle oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa ibraahim faarax cabdulle waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2016 haddaba haddii uuna maqlayo ibraahim faarax cabdulle amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo isaaq faarax cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay beledweyne. dhool muumin tokoy oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa cumar cabdi tokoy waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Liibiya 2013 haddaba haddii uuna maqlayo cumar cabdi tokoy amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo dhool muumin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay #6813872. maxamed cali yuusuf oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa dadka kale ah cabdi cali yuusuf iyo safiya cali yuusuf waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo maxamed cali yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo amaba taleefanka nambarkiisu yahay 252658999. maryan nuur cali oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa cumar maxamed cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadan 2018 haddaba haddii uuna maqlayo cumar maxamed cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maryan nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho ama taleefanka lambarkiisu uu yahay #6434676. maxamed cabdiraxmaan maxamed oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2016 haddaba haddii uuna maqlayo Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cabdiraxmaan maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo amaba taleefanka nambarkiisu yahay 25612999518. nuur macalin ibraahim oo jooga muqdisho waxa uu baafinayaa cabdi macalin ibraahim waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 1995 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi macalin ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nuur macalin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay #6154111. maxamed deeq maxamuud oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa cabdi maxamuud cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2011 haddaba haddii uu maqlayo cabdi maxamuud cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed deeq maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo amaba taleefanka nambarkiisu yahay 25261132914. afrika cali sheekh oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa saadaam cabdulqaadir waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Talyaaniga 2017 haddaba haddii uuna maqlayo saadaam cabdulqaadir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo afrika cali sheekh
iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho ama taleefanka lambarkiisu uu yahay eber 617 سعيد باشنة أحمد أو جوجا بلدوين وحاو بافنيا عبد باشنة أحمد وحاو دنبيسي سندي لبدو كون أفري تبانكي هذا بعد يوم مقليه عبد باشنة أحمد أما وايجر تعد قراني سفر لموركي سهل جارسيو سعيد باشنة أحمد يدو حوار لوسي مرينكرو حفيز كبافن تبشعسي كل هاي بلدوين عبد النور معلن إبراهيم أو جوجو مقدشو وحاو بافنيا بنت عبد النور آذن وحاو دنبيسي سندي كون سقال بقول سقاشني سدحدي هذا بعد أنا مخلصة بنت عبد النور أما ويجر تعد قراني سفر لموركي هلا جارسيو عبد النور معلن إبراهيم أيضا وحورا لوسي مرينكرو حفيزك بافنتا بشعسي كل هاي مقدشو أما تلافن كلام بركيسوي هاي إبر لحالشان أفر هل تضبها هل إبر عبد الله جهاد وجوجا كسمايو وحاو بافنيا مونا عبد الله وحور دنبيسي يدو كسوغن دالك أستراليا سندي لبدو تدوبدي هذا بعد أين مخليسو مونا عبد الله أما بايجر تعد قراني سفر نور كذا هالجارسيو عبد الله وجهاد يدو وحورا لوسي مرينكرو حفيز كبافن تبش عسي كل هاي كسمايو أما بتليفون نمبر كيسي هاي لبشن لبلي حل سديد تدوب سقال له عبد النور معلن إبراهيم أو جوجو إسلام مقدشو حاو بافنيا فرحان محمود فليبان وحاو دنبيسي سوغو كسوغن مقالة نيروبي كون سقال بقول سقاشين سقالكي هذا بحدي ونمخليا فرحان محمود فليبان أما بيجر تعيد قراني سفر لمركي سهل جارسيو عبد النور معلن إبراهيم أيضا وحورا لوسي مرينكرو حافظ كبافن تبش عسي كل هاي مقالة مقدشو أما طليفن كلم بركيسو يهي إبر لحالشان أفر هل تضبو هل إبر حليمة حمادي بقاري oo joogta kismaayo waxa ay baafinaysaa Faaduma Xamaadi Buqaari waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2010 hadaba hadii ay maqlayso Faaduma Xamaadi Buqaari ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Xaliima Xamaadi Buqaari iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo ama telefoonka nambarkiisu yahay 2527 مسكي أبوكر أو جوكتو حرد قحوتيجي كل مس waxay baafinaysaa أحمد أبوكر حسين waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika hadaba hadii uu maqlay أحمد أبوكر حسين ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo مسكي أبوكر حسين ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga kumbis ama telefoonka lambarkiisu yahay eber 6545239 ولي علي متان أو جوكتا مقدشو waxay baafinaysaa wiilkeeda Jaabir Ibraahim Khayre da'diisu waa 8 jir waxaana ugu wardambeysay 25 bishii labaad ee sanadkan hadaba cid allaaliyo cid aragtaa waxa si naxariis leh looga codsanaya inay ku soo hagaajiyaan xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Muqdisho ama telefoonka waliye cali mataan 2525 73549 ku celiya 2525 مريم أبوكر داهر أو جوكتا بلدوينة حبافنيسا حليمة عبد الله علي وحقور دنبيسا يدو كسوغن قاهرة كون سقال بقول سقاشيني سقالكي هذا بعدي أنا مقليسا حليمة عبد الله أما بيجر تعد قرانيسا فضل مركز هلا جارسيو مريم أبيكر داهر أيضا وحورا لاسي مرينكرو حفيزك بافنتا بشعص كل هاي بلدوين أبو مكران ملاف أو جوجا كسمايو وحاو بافنيا دادك كلا عبد الرحمن جعفر معود عمر عبد إيدو dhammaan dadkaasi waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Tanzania sanadii 2010 hadaba hadii ay maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa falan warkooda la gaarsiiyo Aaba Makaraan Malaaf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo ama telefoonka nambarkiisu yahay 2567 Aamina Xasan Xuseen oo joogta magaalada Muqdisho waxay baafinaysaa wiilkeeda oo 8 jir ah aadan siido waxa ugu wardambeysay bishii koowaad ee sanadkan hadaba hadii ay jirto cid aragtay waxa si naxariis leh looga codsanaya inay soo gaarsiiyaan xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama telefoonka hooyo Aamina Xasan Xuseen eber 6788952 برني علي النور وجوكتا بلدوين وحاي بافينيسا حمدي الشيخ عثمان وحقور دنبيسي يدو كسوغن دالك يمن سند يكون 999 هذا بهدي أنا مخليسو حمدي الشيخ عثمان أما بيجرت عد قرانيسا فضل وركي هلا جارسيو برني علي النور يدو وحي ورا لو سيمرينكرو حفيز كبافين تبش عسي كل هاي بلدوين
baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Shamso Cabdi Mukhtaar oo joogta Beledweyne waxay baafinaysaa Maxamed Xasan Cabdi waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Sacuudiga 2014 haddaba haddii uu maqlay Maxamed Xasan Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo Shamso Cabdi Mukhtaar ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Beledweyne baafintina maanta waa naga intaas aad ay u mahadsan yihiin Caasho iyo Samiira oo baafinta inoo soo jeedinaya dhageystayaal idaacadeena duhurnimo ayayna baafintaasi u dambeysay cidii ay sheegtay waxa ay dib uga dhageysan karaan bartaaynu internet ku leenahay bbcsomali.com tan iyo intaan dib uga kulmayno saacadda marka ay tahay 5 galabnimo xilliga geeska Afrika sidaa iyo nabadgelyo